qisadani waa qiso mudan in wax laga barto waa qiso leh macaan jacayl iyo mudnaan gooni ah waa qiso taabanaysa qalbiyada bini'aadamka qisadani waxay ka dhacday gudaha dalkeena Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waxayna dhaxmartay Saadiq iyo Samiira waxay ahaayeen lamaano ku heshiiyay in dunidan ay isaga go'aan waxay ahaayeen kuwa si dhab ah isku jecel waxay ahaayeen kuwa looga daydo xubbiga ka dhaxeeya wuxuu jaceylkoodu gaarsiisanaa heerkii Qays iyo Layla taariikhdoodana mucaashiqiintan dunida waxay ka galeen baaldahriye Saadiq iyo Samiira waxay ku wada noolaayeen hal xaafad oo nasiib darro nolol ahaan ma wada sinayn Saadiq iyo Samiira Saadiq wuxuu ahaa wiil faqiir ah Samiira ehelkeedu waxay ahaayeen ehel taajiriin ah waxayna ku noolaayeen dalka Mareykanka Saadiq Samiira wuxuu u qabay jacayl xad dhaaf ah ma uusan aaminsanayn in jacaylka xad dhaafka badan u qabo Samiira inuu jiro qof jacaylka oo kala loo qabo waxay kulmi jireen maalin walba sheeko farxad qosol iyo sidoo kale reen ayaa dhaxmari jirtay waxay ahaayeen kuwa isfahansan nolol ahaan iyo shakhsi ahaanba waxay dalxiis u tagi jireen meelaha ugu qurxoon caasimadda Muqdisho sida beerta nabadda Liida iyo Jasiira muddo kadib waxa uu waqtiga iyo waayahaba isguraan Samiira waxa uu soo baxay leen kaasi oo ka dhignaa in gabi ahaanba isaga hayaanto geyiga Soomaaliya waxa soo wajahday murugo ciil iyo catow badan ayaana la soo diristay adduunko idil waxa uu ku soo noqday ciriiri waxayna dareentay in lama huraan ay tahay inay baxad waalidkeeda oo ku maqnaa wadanka Mareykanka ayaa waxay ku amreen inay tagto wadanka Uganda gaar ahaan magaalada Kampala halkaas oo ay ku sugnaanayso inta ka dhiman bixitaankeeda iyadoo Samiira murugaysan ayaa waxa ay u soo dhaqaaqday guriga Saadiq oo ay daris ahaayeen si ay ugu sheegto arrinka soo kordhay ma ahayn wax sahlan mana ahayn wax fudud oo lamaana isjeceliin wanaagsan waxa ay hortagtay Saadiq oo banaanka guriga fadhiyay jawga maalinka waxa uu ahaa mid saxan roobeed leh balse uma qurxooneyn lamaanahan sida xalaasha isku jecel Saadiq oo ahaa mucaashiq si dhab ah u jecel Samiiro ayaa mar qura sheekadii si kadis ah ugu sheegtay Samiiro iyada oo murugaysan ودرنا الله يوم ودرنا رفع عيل ودرنا رفع عيل ودرنا الله يوم ودرنا رفع عيل ودرنا ما يقول دقي أنا يقول ما يقول دقي لا دعي ورمها سيدو إيدك سبيت إما دقي درش شي يا إله ما يقول دقي أنا يقول ما يقول دقي ما لا دعي ورمها سيدو إيدك سبيت إما دقي درش شي يا إله دنا إما دافني دوحي ولك دبرتنا ودنه دحيانا alla maxay xanuun badan tahay marka lamaana isjecel uu soo kala dhaxgalo kala hayaam kaasi oo ku aadan qof iyaga kamid ah inuu safar aado Saadiq oo la daalaadhacay caashiqu u qabo Samiiro ayaa naftiisa ku qanciyay in wax walba ay wanaag ku dhamaan doonaan siniyad sami iyo kalsooni ku jirta ayuu ula hadlay xabiibtiisa Samiira maalin kadib waxa la gaaray xilligii safarka ay noqon lahayd mucaashiqadii Samiira Saadiq oo naftiisa khayr iyo baraaro u sheegaya ayaa soo sagootiyay gacalisidiisa Samiira ilaa elboorka ayuuna keenay diyaaradii qaadi lahayd oo ka citimi lahayd magaalada Kampala ayaa soo caga dhigatay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde International Airport waxa marqura Saadiq ka soo daadatay ilin kaasi oo dareemi karo qof wax jecel Saadiqna maalinka waxay weyd maalin murugo leh Samiiro alla ayaa samageeyay magaalada Kampala Saadiq oo wehel darre caashiqi soo wajahday ayaa waxa uu isku dayay inuu soo raadiyo ciwaan ama telefoon laga helo Samiira nasiib darro Samiira tel ama number uguna aysan tagin markii ay ka tageysay
gudaha dalka Soomaaliya. Saadaq ayaa kurbooday wax uuna dareemay kurbacasha. 3 bil kadib magaalada Kampala Samiira ayaa ka dhooftay waxayna nabad ku gaartay waddanka Mareykanka halka oo waalidkeeda ay ku noolaayeen. Maskiinkii Saadaq ahaa walwal badan iyo ciriiri ayuu galay. Samiira kama qasnayn waxa ay farxad iyo reereen ku joogtay gudaha waddanka Mareykanka. waxay sahal ku ilowday jacaylkii kala dhaxeeyay Saadaq oo ay ugu soo tagtay qaaradii madoobeed ee Afrika. mucaashaqadii Afrika wax ku jeclayd oo la oran jiray Samiira waxa ka tanbadiyay daaraha qurxoon ee ku yaala magaalada New York. sikan iska daaye maskaxdeeda ayay ka dileeday Saadaq. Samiiro waxay isbarteen wiil lacag leh una dhashay waddanka Mareykanka oo la yiraahdo Stephen oo Muslim ah kaasi oo ku bixiyay qarashaad lacag ahi si uu soo jiito. waxa uu geeyay goobaha ugu qurxoon ee ku yaala magaalada New York. Saadaq iska daaye waxay sikin ku ilowday qaaradii madoobeed oo ay ka soo jeeday ee la yiraahdo Afrika. wiilkii Mareykanka ahaa waxay Samiiro oo qurux alla u dhameeyay isku afgarteen inuu soo doonto. aridii haweenkeygina oo idila inta gabar ku nool dumar gabigood habla kacay yankeed ka doortay aan ka doortay. ehelkii Stephen ayaana soo doonay Samiira. waxa la isku afgartay in la isku daro guurkooduna u dhaco maalin kadib. Saadaq warkama hayo waxa uu ku tala jiraa inuu Mareykanka u soo tahriibo inuu yimaado Mareykanka daaye xitaa wuxuu cuno waqtiyada qaar ma helo. kama warhayo qofta uu jeclaa adduunkan uu kala baxay in la siiyeen goordhowna aroosi ay tahay. Samiiro farxad Saadaq oo ku noolaa qaaradda madoobe Afrika murugo iyo mugdi ayaa isku gadaamay. waxa la gaaray maalintii arooska ahayd. Samiiro ganacsadayaal waaweyn oo Mareykan ahay ayaa ka soo qayb galay arooskii Samiira. marti sharaf kala duwan ayaa xaadir ahaa maalinka. haddaan iyo madow ayaa qayb ka ah waxa arooskeeda lagu qabtay hoteelka ugu weyn magaalada New York. lacag gaaraysa $70,000 ayaana ku baxday arooskii Samiira. habeenkii waa la galbiyay Samiira. inda darandar ayaa ku dhacay ka tanbadiyay lacagta iyo guriga loo hoohiyay oo ahaa sidii guri boqor oo kale. ودي أبسبي إيجاسي سجاربو وريجي سجوكتا قبل ذي عيارتيو وقل كل عويسا قعلتو يذي تاي قرلي مدوبا وقراد هوانا قال الموقوشون ونقيذو منكرين حاسا ولا مقرين سيدا قوبي عادكين ونقيل كمو بيحن قال ذي بويه وحنقول لكو قرين ورد لقو مقاري أو علان قاوة. Saadaqna nolol mugdi ah. Samiirana iftiin farxad ayaa u bilowday. dumar waa indho ku garaad leh lacagtii ayaa qaaday. 3 sano kadib Saadaq waxbarashadii waa uu nacay. wuxuu ku sigtay inuu waasho. قاردي نفتيداي مقام او هبينكي وعشان ما بدايه عدو على فالكا قلاهاي انا نقول حريركي قول حريركي كوكو هذا المايه دعان كوكو قلبيني كيدا جعلاي مربوكا سليعا كاقي مران استاقا هلا اقر فين كريم قد مولو افيستا كوكو هذا المايه دعان كوكو قلبيني كيدا جعلاي مربوكا سليعا كاقي مران استاقا هلا اقر فين كريم قد مولو افيستا
inaad haweena gelin ma uu ku hawshan weligeedu muu korin hasaawa lama gelin sida gobiya cadkeed weligeel kamuu bixin galladeeba weeye waxaan guula kuu qorin orod laguma gaadhe aw culaaningawa maalin maalmaha ka mid ah saadaq ayaa waxyeelo ka soo gaartay qarax gaari oo muqdisho ka dhacay qaybo ka mid ah lixaadkiisa ayuuna ku waayay isagoo isbitaal ku jira ayuu ka war helay in Samiiro la guursaday xaasna ay tahay murugo ayay dhashay tii hororoonayda balse tana ka daran saadaq ayaa dhaawiciisa waxa lagu wargeliyay ehelkiisa in gudaha muqdisho murugo ayay dhashay tii hororoonayda balse tana ka daran saadaq ayaa dhaawiciisa wax loogu qaban waayay gudaha magaalada muqdisho waxa lagu wargeliyay ehelkiisa in wadanka Germany loo qaado Germany daaye waxay jibinka u mariyaan saadaqna ma hayaan 3 habeen kadib saadaq ayaa ku geeriyooday isbitaalkii uu ku jiray Samiiro xusuus daaye magac saadaq maba xusuusataba ubad ayuu rabbi siiyay saadaqna halkii roonayd ayuu rabbi u kaxaystay محمدين كهاره نادي أني جيلا دعي محمدين كهاره نادي أني جيلا دعي ونذوق تهاره كرداي نوتشين والنعاد كالقعال كوين محويبون دا شلي ونذوق تهاره كرداي نوتشين والنعاد كالقعال كوين محويبون دا شلي